kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu waaweyn YouTube-ka xaqiiqsan media. Gudoomiye Yariisow oo shaaciyay siyaasiyiin doonaya inay xilka ka tuuraan walwalna ka muujiyay dowladda federaalka oo warqad ka dhana siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku shiraya Nairobi u dirtay Kenya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo cadaadis lagu saarayo inuu xilka ka qaado wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya. Maxkamadda sare oo aqbashay dacwad laga gudbiyay madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa. sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah Puntland oo taageero aanay ka helin dowladda federaalka ka raadinaysa Norway. Trump oo soo saaray shuruuc saameyn ku yeelan karta Soomaalida. Akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxaa ka mid ah mas'uuliyiin loo xirxiray eedeyn la xiriirta musuqmaasuq. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow ayaa walwal ka muujiyay siyaasiyiin doonaya inay xilka ka tuuraan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow ayaa sheegay in sugidda amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dhibaato ay ku yihiin siyaasiyiin danley ah. waxa uu sheegay in siyaasiyiintaasi ay yihiin kuwa xaasid oo doonaya inay maamulka ridaan isla markaana amniga ay dhibaato ku yihiin iyaga oo wixii la soo maray kuwaas oo amniga siyaasadeynaya. waxaa jira dhaqan oo laga yaabo in dhalinyarada hadda jirta ku soo koreen oo mar walba loo dhaxeeyo sida hogaamiye kooxeed ama burcad, laakiin hadda lama joogo waqtigii la dhihi jiray iska gaabso iyaysan al-shabaab ku arkin, laakiin annaga hadda haddaan anaga shacabka fahmin amni lama sugi karo, ayuu yiri duqa magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow ayaa weerar dhinaca afka ah ku qaaday xildhibaano iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda, kuwaas oo uu sheegay inay caqabad ku yihiin dowladnimada Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warqad ka dhana siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku shiraya Nairobi u dirtay Kenya. warar aan helayno ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay warqad qoraal ah oo digniin ah oo lagu farayo siyaasiyiinta ku shiraya magaalada Nairobi u gudbisay Kenya, waxaana warqadda lagu sheegay in Kenya aysan ogolaan shirarka lagu duminayo qarannimada Soomaaliya oo ka dhacaya dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa warqad qoraal ah oo ay u gudbisay safiirka Kenya u jooga Soomaaliya Lucas Tombo waxaa looga dalbaday Kenya inay adkayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Soomaaliya, isla markaana muhiim ay tahay inaysan ogolaanin shirar ka dhan ah dowladnimada laguna duminayo qarannimada oo ay siyaasiyiin danley ahi ku yeeshaan magaalada Nairobi. sidoo kale dowladda federaalka ayaa sheegtay in shirarka ay siyaasiyiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada ay ku leeyihiin magaalada Nairobi la doonayo in lagu majaxaabiyo hanaanka dowladnimo isla markaana lagu abuuro qas iyo foodo siyaasadeed. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa wanaagsaneyn tan iyo markii uu khilaafka soo kala dhexgalay, waxaana weli Nairobi ku laaban safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo weli ku sugan magaalada Muqdisho, halka safiirka Kenya howlihiisa diblomaasiyadeed uu ka wata magaalada Muqdisho. sida ay wararku sheegayaan, wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaan weli qorin warqadii codsiga ahayd ee dib u laabashada Nairobi. sidoo kalena waxaa jira arrimo kale oo la isla dhexmarayo ay ka mid yihiin uusan Tarsan ku qanacsaneen inuu dib ugu laabto Nairobi una ku fakirayo in dowladda Soomaaliya xil kale ay u magacaawdo. dhanka kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa cadaadis lagu saarayaa inuu xilka ka xayuubiyo wasiirka amniga. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa cadaadis xoogan lagu saarayaa inuu xilka ka qaado wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaali oo lagu eedeeyay inuu ku fashilmay xilkii ummadda ay u igmatay. qaar ka mid ah waxgaradka ku-heebka ah oo aan la dhacsaneyn hawsha wasiirka ayaa maalmihii u dambeeyey isaga daba noqnoqonaya xafiiska ra'iisul wasaaraha, iyagoo ujeedkoodu yahay in xilka laga xayuubiyo wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo saaxiib dhow la ah madaxtooyada Soomaaliya. wararka qaar oo aan helayna ayaa sheegaya in odayaasha aysan ka helin ra'iisul wasaare Kheyre jawaab ay ku qancaan, wuxuuna 2 jeer oo uu la kulmay u sheegay inuu tixgelinayo rabitaankooda, balse aysan odayaashu arkin wax ka soo naasacadaaday kulamadii ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. wasiirka ayaa marar badan qudhiisa lagula taliyay inuu iscasilo maadaama uu ka soo bixi waayay mas'uuliyaddii loo idmaday oo ahayd inuu difaaco maalka iyo nafta ummadda Soomaaliyeed. al-shabaab ayaa kordhiyay qaraxyada iyo weerarada ay ka geystaan magaalada Muqdisho, iyadoo shacabka magaalada ay dareemayaan cabsi xagga amniga
la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan oo fooda nagu soo hayso. maxkamadda sare ayaa aqbashay dacwad laga gudbiyay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa waxa la gaarsiiyay dacwad ka dhan ah madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaaw Xuseen, waxaana dacwadaasi gudbiyay 11 xubnood oo kamid ahaa wasiiradii hore ee Hirshabelle. xubno ka mid ah mas'uuliyiinta dacwadda gudbiya ayaa waxa ay sheegeen inay dacwadda la xiriirto inay ka maqan tahay xuquuq mushaari ay ku leeyihiin madaxda Hirshabelle isla markaana ay cabasho ka yihiin. wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha Hirshabelle Dr. Xuseen Cilmi Cismaan oo ka mid ah xubnaha dacwadda gudbiya ayaa sheegay in dacwadaasi ay soo martay heerar kala duwan isla markaana shalay ay gaartay maxkamadda sare ee dalka, sidoo kalena maalintii Isniinta dacwadda la gudagali doono. waxa uu sheegay in dhammaan xubnaha dacwadda gudbiya ay shaqeynayeen muddo 15 bilood ah isla markaana aysan helin wax mushaar oo xuquuqda ay ku maqan tahay. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray shuruuc saameyn ku yeelan karta Soomaalida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan shaaciyay talooyin cusub oo lagu xakameynayo dadka u soo safra Mareykanka ee ku soo galaya fiisaha kadibna si sharci darro ah isaga jooga Mareykanka marka uu fiisaha ama dalku galka uu ka dhaco. siyaasadan cusub ayaa lagu ciqaabayaa wadamada dadkooda fiisayaasha waxbarasho iyo kuwa xiisku ku soo gala Mareykanka kadibna iska sii jooga Mareykanka. talaabadan ayaa si gaar ah u saameynaysa wadamo Afrikaan oo Soomaaliya ay ku jirto. Trump ayaa markii uu ku jiray ololihiisa doorashada waxa uu sheegay inaan la ogolaan doonin dadka muslimiinta ee iska soo galaya dalkaasi, isagoo markii uu guuleystana dalkaasi ka mamnuucay inay galaan 7 dal. maamulka Puntland ayaa taageero aanay ka helin dowladda federaalka ka raadinaya Norway. madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani oo uu weheliyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabacanad ayaa magaalada Nairobi kulan kula qaatay safiirka dalka Norway u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Mrs. Elin. kulankan oo qayb ka ahaa kulamada madaxweynaha Puntland la qaadanayo beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha dimuqraadiyadda, amniga, kobcinta dhaqaalaha, xoojinta doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda, doorashooyinka, hanaanka xisbiyada badan, maalgashiga, waxbarashada, la dagaalanka argagixisada oo muhiimada gaar ah lahaa iyo sidii ay dowladda Norway gacan uga geysan lahayd dadaalada xukuumadda cusub ee madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani uu wado. Ambassador Mrs. Elin ayaa dowladda Puntland ku ammaantay biseylka siyaasadeed ay gaartay iyo sida mar waliba si nabdoon ay u qabsoonto doorasho xalaal ah, waxaana ay xustay inay taasi muujinayso in Puntland ay u diyaarsan tahay sidii ay ula tartami lahayd caalamka. isla markaana Mrs. Elin ay ballan qaaday in dowladeeda ay si dhow ula shaqeynayso Puntland ayna kordhinayaan mashaariicda ay Norway ka fuliso deegaanada Puntland. ugu dambeyntiina madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ku ammaanay dowladda Norway doorka wanaagsan ay mar walba ka qaataan horumarinta Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan doorkooda wanaagsan ee Puntland khaasatan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo doorashooyinka. waxauna kulanka ku soo dhamaaday is-afgarad iyo guul. ugu dambeyntiina akhbaaraadka caalamka haddaynu eegno, mas-uuliyiin ayaa loo xirxiray eedeyn la xiriirta musuqmaasuq. gudoomiyihii hore ee magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya Evanes Kidore ayaa la dhigay xabsiga kadib markii lagu eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq. Kidore ayaa waxaa lala xiray madaxii hore ee shaqaalaha ee dowladda hoose ee Nairobi George Wanini sida ay wararku sheegayaan. dalka Kenya ayaa dhawaan waxay sheegayaan inay jiraan cadeymo la hayo eedeynta la xiriirta musuqmaasuqa oo 17 ruux oo ku jiro gudoomiyihii hore ee magaalada Nairobi. qareenada u doodaya dadka eedeymaha loo haysto weli kama aysan hadlin arrintaasi, waxaana dowladda Kenya toddobaadyadii la soo dhaafay ay waday xiritaanka mas'uuliyiinta lagu helay falalka musuqmaasuqa. guud ahaan warkii aad kala socoteen YouTube-ka Xaqiiqsan Media daawadayaal waa naga inta.